wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkiisa kadib munaasabad ka dhacday xarunta maxkamadda ee magaalada Muqdisho. xafladaasi oo uu xilka kula wareegayay wasiir Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaanada labada gole ee dawladda, garsoorayaal, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, xeer ilaaliyaha qaranka, gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyo Raxsaanka, wasiirkii hore ee cadaaladda iyo wasiirka cusub ee xilka la wareegay iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo marti sharaf kale. dadka ka hadlay munaasabadda oo khudbadaha ka jeediyey ayaa bogaadiyey wasiirka, iyagoona ugu duceeyey inuu xilkan culus ee loo idmaday uu alle la garab galo. maanta waxaynu u joognaa xafladda xil wareejinta wasaaradda cadaaladda oo runtii cadaaladdu tiir weyn oo dowladnimada aasaaskeeda sal u ah. ra'iisul wasaare ku-xigeen ah wax badan talooyin iyo tusaalena ka dhiibtay. run ahaantii waxyaabo badan baa la qabtay markaan aan wasaaradda imaaday. haddii aan wax yar ka taabto waxaa ugu horeeyey qaab dhismeedka iyo shaqaalaha tayadooda in aad iyo aad loo kordhiyo. wasaaradda qaab dhismeedkeedana waa la habeeyey, tayada shaqaalaha joogtana aad baa loo tababaray. sababta oo waxaan aaminsanaa waxa ugu muhiimsan oo waxa dhisi karo dad inay yihiin, kadibna markaas kadib dal la dhisi karaa. taas alxamdulilah howlwadeenadan aad meeshii joogaan aad u jeedo waa dad khubaro oo wasaaradda soo saartay. qodobka labaad waxaan diiradda saaray dubahabeynta garsoorka oo laba qaybood ah. qaybta maxkamadaha, ra'iisul wasaare waxaan la soo shaqeeyey laba gudoomiye maxkamadda sare, laba xeer ilaaliye iyo saddex gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka. waad dareemi kartaa reformka iyo dib u habeynta garsoorka maray. dib u habeyntaas waxaa faa'iido dhalisay dhismaha garsoorayaasha iyo tababarkooda iyo aqoontooda iyo dhismahaada aad u jeedid oo garsoorka bahda garsoorka ay runtii aad ugu faani karto. gudoomiyihii horena ka soo shaqeeyey, gudoomiyaha maxkamadda sare hadda joogay iyo tiimkiisna si xawli ay u shaqeeyeenoo wax badan ay ku soo kordhiyeen. qaybta labaad oo garsoorka aan waxa ka qabtay waxay ahayd qaybta la yiraahdo xalinta khilaafaadka dadban oo xafiisyo laga furay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaa keesas xal laga gaaray 13,000 oo kees ya xal laga gaaray xalinta khilaafaad. taas haddaan ka gudbo tan saddexaad, cadaaladii oo la baahiyey dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka loona hiigsaday kaalmo sharciyeed iyo legal aid waxa la yiraahdo. taasna waa baahday sidii klibka hadda lagu sheegay. tan saddexaad aan diiradda saaray inaan dhiso xafiis istiraatiijiyada siyaasadda iyo shuruucda iyo heshiisyada diyaarinayo, kuwaas oo diyaariyey 72 hindisi sharciyeed loo keenay, kuwana dib u eegis ku sameeyeen inay sameeyeen tirakoob oo shuruucda dalka markii xorriyada qaadanaynay iyo hadda dhexdood waxaan haynaa 714 sharci oo tirakoobkooda la diyaariyey. waxaan kale diiradda saarnay in dib u eegis aan ku sameyno dib u habeyn ciidamada usluubta iyo reformkii dowladda socday in la qalabeeyo, in maaragtay la tirakoobo, biometricii loo sameeyo, iyo in xabsiyada dalka la balaariyo. dowlad goboleedyada kulli xabsiyaal waaweyn yaan ka dhisnay, gobolka Banaadir ku jiro oo dhismahooda qaar socdo. halka gobol oo naga maqan Hirshabeellena waxaan ugu tagi doonaa inuu dhismahaas dhammaystiro oo faan u helo wasiirka iga dambeey. xiriirka oo wasaaradda samaysay dowlad goboleedyada, wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo dowladda waa isla shaqeeyaan. xafiis ay inta ku leeyihiin si direct ay isla shaqeeyaan. internationalka xiriirka aan la leenahayn aad buu u wanaagsan yahay. marka xiriirkaasna in la xoojiyo aad baan ugu shaqeynay. waxaa kale aad iyo aad looga shaqeeyey in
xafiis oo anshax wanaagga iyo dowlad wanaagga la furo shuruucdii soo baxdayna waa la socdaa istiraatiijiyadii iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa xafiiskaas oo aad iyo aad u shaqaynayo hadda xafiiskaas oo hadda barnaamijka deen afista qayb ka ah oo la rabo in la sii wadana aad iyo aad buu u shaqeeyey waxaan kale diiradda saarnay caruurta iyo dadka maaragtay tabaalaysan ilaalintooda child protection juvenile justice iyo shuruuc kale rehabilitation waan samaynay waxaa wasaaradda qayb ka tahay dib u xasilinta dalka iyo goobaha la xoreeyay in la geeyo maxkamad xeer ilaalin in la geeyo urur qareene iyo legal aid kaasna wasaaradda arrimaha gudaha yaan kala shaqaynayna arrintaasna aad bay u socotaa waan arrin hadda loo baahan yahay maadaama dalkeena la xoreynayo aniga maadaama gaashaandhiga tagay aad baa loo baahan yahay tanna in laisku xiro oo shaqadaas la qabto waxaa kale hadda miiska saaran oo aad iyo aad loo rabaa in la dhammaystiro dhismihii wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo funds lacag wasaaradda u soo raadisay la helay la dhagax dhigay insha Allah kaasna dhammaystirkiisa ya laga raba waxaa kale oo wasaaradda qabatay mashruuc yaro oo scholarship program la yiraahdo looga saaro ardayda la soo saaro arday oo garsoorka la shaqayn doonto oo loo baahan yahay mashruucaas oo asigana arday badan oo Soomaali ah waliba aan dooranay dad oo masaakiin oo iska bixin karin jaamacad kuwaas oo dawlad goboleedada afarta dawlad goboleed la siiyay kuwaas oo numberkooda gaarayo 210 dawlad goboleedada loo qiibiyay kuwaasna kuwii ugu horeeyay markaan imaanaynay la qaatay hadda ay qalan jibinayaan ayagana garsoorka qiib yay ka noqonayaan ra'iisul wasaare recommendation-ka ana wasiirka ugu tagayo golihii adeega garsoorka meel fiican aan geynay dhamaystirkiis waa loo baahan yahay waxaa way guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dhamaystirkiisa ayaa loo baahan yahay baarlamaanku yaala wasaaradda dhismaheeda waa bilowday dhamaystirkiisa ayaa laga rabaa xiriirka caalamiga iyo kan maxalliga oo garsoorkana inaad si wanaajisada la rabaa xafiisyada xalinta khilaafaadkana aad bay u baahan ayadana inaad wax la qabataa la rabaa run ahaantii jawhar xabsigii u dhinaa oo dawlad goboleedada dhan la soo sameeyeen funds inaad u raadiso oo aad u dhistaa loo baahan yahay waxaan ku leeyahay dad la soo tababaray waa kula joogaan qorshayaal oo ballaaran la diyaariyay waad haysataa anigana inkastoo meel kale la igeeyey diyaar baan kula ahay inaan kuga caawiyo marka waxaan u hambaliyeynayaa oona u mahadcelinayaa oo aan kala reebaynin baxda cadaaladda kulligeeda yacni ma kala reebay kulligiina waa mahadsantihiin waa ila soo shaqaysteen sharafaad leedihiin haddii aan wax iga tabanaysaan muddadii shaqada lagu jiray waa dhici karta qofku markuu shaqada ku jiro inay dad wax ka taban doonaan ani xaggayga waxaa way cafis iyo musaamaxa iga tihiin idinkana inaa cafis iyo musaamax idinka noqdaan rabaa waana salaamintiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo maanta xilka la wareegay Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in meelaha ugu muhiimsan ee dalka dhibaatadu ka gaartay ay ka mid tahay cadaaladda isagoona howlwadeennada iyo bahda garsoorkaba ka codsaday in ay si milga leh ula shaqeeyaan oo ay garab istaagaan gudoomiyaha maxkamadda sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga ahna wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda weli kale ma wareegin laakiin wasiirka cadaaladda xeer ilaaliyaha guud xildhibaanada labada aqal bahda garsoorka iyo maxkamadaha wixii halkaa ka joogo marti sharafta dhammaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu haddii maanta war badan ma lihi oo wasaaradda hadda ay ugu horeyso wixii walaalkayga ka tegay inaan meesheeda ka sii wado oo aan hore u sii dardar geliyo wixii kale oo cusub oo waqtiga noo saamaxana
wasaaradda inaan ka qabanno ayaa ugu muhiimsan. Shaqaalaha wasaaradda iyo bahda garsoorka dhammaantood waxaan ka codsanayaa inay si milgale ila shaqeeyaan oo ay garab istaagaan hawsha culus oo xaqiiqdii mas'uuliyaddeeda gaarka ah leh. Meelaha ugu muhiimsan oo dalku dhibaatada ka gaartayna ka mid ah in mas'uuliyaddaas aan si wadajir ah u wada qaadno, uga wada shaqeyno, shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda guud ahaanna si maaragtaa ay ugu hesho adeeg wanaagsan oo loo riyaaqo. Intaasaa ugu muhiimsan. Warkaygii waa noo dambeyn doonaa wixii war iyo maaragtaa sheeko iyo howlo ahna xafiis ahaan ayaan uga wada shaqeyn doonaa. aadaan u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wasiir cabdiqaadir maxamed nuur ayaa ka qalin jabiyey jaamacadda Ankara isagoona xilal kala duwan ka qabtay safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ilaa heer safiir ku xigeen iyo qunsul guud uu ka noqdo. tan iyo markii uu ka soo muuqday liiska wasiirada cusub ee xukuumadda ra'iisul wasaare Roble, warbaahinta Turkiga ayaa aad u hadal haysay maadaama uu ahaa arday ka faa'iidaystay deeqda waxbarasho isla markaana jagooyin sare ka soo qabtay waddanka. inta aan wasiirka loo magacaabin wuxuu ahaa la taliye sare ee golaha shacabka isla markaasna soo qabtay taliye ku xigeenka NISA. ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirka cadaaladda, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka dowlaha iyo wasiirka xigeenka, xeraalyaha guud ee qaranka, xubnaha xildhibaanada labada aqal, garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka, gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka, dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan galab wanaagsan. aad baan u faraxsanahay inaan maanta goobjoog u noqdo xil wareejinta ay wasaaradda cadaaladda kula kala wareegayaan labada wasiir, wasiirka cusub iyo wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda haddana ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. runtii ra'iisul wasaare ku-xigeenka sharxay xiriirka ka dhexeeya cadaaladda iyo nabadgelyada iyo sida ay isugu xidhan yihiin hay'adaha dawladdu. abwaan Soomaaliyeed oo gabayna wuxuu lahaa rag cadaalad waaya sidii cawsha kale yaa, isagoo uga jeeday dad cadaalad waaya sidii cawsha kale yaa. bini'aadmiga waxa uu ku nool yahay ee isku xidha ee isku haya waxa weeye waa cadaaladda. cadaaladdu waxay aasaas iyo guddig u tahay wax kasta oo nolosha bini'aadmiga saameeya. haddii ay noqoto nabadgelyo iyo haddii ay noqoto horumar iyo haddii ay noqoto sharaf iyo karaamo, waxaa aasaas u ah cadaalad. ummaddu marka ay cadaalad weydo ayaa waxay isku daydaa tabashooyinka ay qabto inay gacmaheeda ku fushato, sharciga gacanta ku qaadato. laakiin inta ummadi ay cadaalad haysato way adag tahay in ummaddu ay isku daydo inay rabshad iyo dagaal inay wax ku dhacsato. si taa loo helo markaa qarankani wuxuu ka kooban yahay 3 waaxood oo kala madax bannaan laakiin si xoog ah isugu xidhan, oo midna aanu midka kale la'aantii tallaabo qaadi karin. tusaale ahaan garsoorku haddii aanay si dhow ula shaqayn waaxda fulinta iyo baarlamaanka ama xeer dejintu, xaqiiqo waxaa inaanay tallaabo qaadi karin. waayo garsoorku wuxuu fuliyaa oo keliyata qawaaniin iyo shuruuc ka soo baxday golayaasha kale. laga yaabo in badan oo ka mid inay ka soo bilaabantay waaxda fulinta kadibna timid xeer dejinta, saa xeer dejintii ay ku meel marisay madaxweynuhuna ugu dambayn uu saxeexo, taasay fulisaa. marka waxaa loo baahan yahay shuruucda noocaas inay noqdaan shuruuc cad oo aan mugdi ku jirin oo ka jawaabaysa baahida ummadeed ee markaasi jirta. sidoo kale haddii aanu garsoor jirin, xukuumaddii iyo fulintiina ma shaqayn karaan. dambiilihii meel ay geeyaan ma yaqaanaan, meel ay ku xidhaan ma jirto, cid u xukuntaa ma jirto, khilaafaadkii badnaayee bulshada dhexdeeda ka jirayna cid ka garsoortaa ma jirto. baarlamaan haddii uu jirin iyaduna waxa weeye shuruuc lama helayo. yacni waxa weeye waa 3 hay'adood oo iskaabaya, oo isdheeli tiraya, oo isla xisaabtamaya, oo midba midka kale aanu la'aantii shaqayn karin. saas darteed waxaa loo baahan yahay markaa in si dhow oo mug leh looga wada shaqeeyo runtii. waxaan wasiirkii hore ku bogaadinaa wixii shaqo uu qabtay. wasiirka cusubna waxaan ku ducaynaynaa ilaahay inuu howlaha u fududeeyo
waxaynu nahay dal burburay oo muddo dheer ku soo jiray burbur oo hadda uu hay'adihiisii dawladdu dib u kabasho iyo dib u dhis ay ku jiraan ma sahlana markaasi hawsha noocaasi maalmo iyo bilo iyo sanadana waa adag tahay hay'adaha dawliga inay cagahooda si rasmi ah isugu taagaan laakiin muddaaba talaaba maalinba la soo qaadayay maalinba waxba lagu darayay meel wanaagsan bay hadda maraysaa wasiirkuna wuxuu ka soo gaaray meel fiican oo ka sii amba qaadi karo oo shuruuc badan la diyaariyay hay'ado badanna la dhisay hawlaha ugu waaweyn ee maanta wasiirka u yaalla inkastoo muddaxileedkiisu ay aad u kooban tahay waxaa ka mid ah inuu wax ka bilaabo hawl ama sii xoojiyo hawshii socotay ee dib u habaynta shuruucda dalka waxaynu ognahay dalkeenu markii hore inay shuruucdiisu ahayd laba sharci oo kala duwan oo isku yimid oo si nidaamkan loo yaqaano civil lawga ee talyaaniga iyo dhulkan ka yimid iyo nidaamka ingiriiska oo common law loo yaqaano waqtigaasi waxaa la sameeyey hay'ad la odhan jiray hay'adda isdhexgelinta shuruucda oo runtii ka shaqaynaysay in labadaa sharci la iswaafajiyo haddana dalku wuxuu galay dowladdii rayidka ahayd dowlad militariya shuruuc badan bay soo saartay muddooyinkii dambena waxaa soo baxayay shuruuc badan shuruucda noocaasi waxay u baahan yihiin si mugle inta loo eego la iswaafajiyo deedna ay ka soo baxaan shuruuc waafaqsan xaaladda iyo duruufta aynu ku sugannahay waxay iyaguna u baahan dib u habayn ballaaran oo si mugle loo eego qawaaniinta waaweyn ee hadda garsoorku dabaqo ay ka mid yihiin kuwa ciqaabta iyo kuwa madaniga oo runtii ka ugu dambeeyey la sameeyey 74 waad qiyaasi kartaan muddo ka badan 40 sanadood xeer madani oo lagu dhaqmayay iyo maanta adduunku halka uu marayo ganacsiga in laga guuray ganacsiga caadiga ah la marayo electronic xeerarkan ciqaabtina waxa weeye waa 63 imise dambi oo aan la aqoon ayaa dunida waqtigaasi ku soo biiray marka aad iyo aad bay muhiim u tahay wana hawlaha waaweyn ee wasiirka hor yaalla dib u habaynta shuruucda dalkani uu leeyahay waxay iyaduna hawl weyn oo laga maarmaan wax laga qabtaa soona socotay wax badanna xukuumadda hadda jirta ay ka soo qabatay hanaanka cadaaladda dalka Soomaaliya wuxuu lahaan jiray hanaan garsoor oo midaysan maadaama uu dalka ahaa nidaamka dawladnimo mid midaysan waxaase la qaatay nidaamka federaaliga ah oo falkiyay awoodihii dawladda iyo habkii dawladnimo ee dalka ka jiray taas waxay keentay markaa garsoorkii inuu noqdo qaybo kala duwan oo dawlad goboleedyadina garsoor gaar ah yeeshaan federaalkina garsoor gaar ah yeesho weli markaa ma fadhiyo nooca garsoor ee uu dalkan yeelanayo ma mid midaysanba ma mid barbar socda ma mid isku dhafanba laakiin hawshaas waa bilaabantay heshiisyo hordhaca laga gaadhay waa hawlaha u yaalla wasiirka insha Allah tacaala dhamaystirkeeda iyo inuu hawshaasi ka sii shaqeeyo garsoorka waxa aasaas u ah oo uu ku dhisan yahay oo xaqiijiye shaqo wanaagiisa iyo madax bannaanidiisa iyo isla xisaabtankiisu waxa weeye waa golaha adeega garsoorka isagana shaqo fiican baa laga qabtay laakiin waa hawlaha wasiirka aan ku dhiirigelinno dhamaystirkeeda si loo helo garsoor hufan oo madax bannaan oo dhammaystiran oo ummadda Soomaaliyeed ugu adeegi kara cadaalad hawlaha waaweyn ee iyaguna hor yaalla waxaa ka mid ah dib u habaynta xabsiyada runtii dalku maadaama uu burburay xabsiyadiina waa burbureen duruufta xabsiyadu markaa in dib loo eego ayay u baahan tahay xeerarkooda iyo sida u shaqeeyaan iyo duruufta ay ku sugan yihiin maxaabiista xabsiyadu runtii waa hawlaha kooban ee la taataaban karo ee ugu yaalla wasiirku inuu wax ka qabto insha Allah tacaala waana ugu ducaynaynaa hawlahaasi inuu fududeeyo waxaan u ballan qaadaynaa madaxweyne wasiirka ku ballan qaadaynaa ka garsoor ahaan inaanu gacan buuxda ka siino xilgudashadaada iyo gaaritaanka iyo xaqiijinta waajibaadka waaweyn ee ku hor yaalla ee qarankan ugu weyn taa haddii aynu yeelno oo gacmaha la isku wada qabsado hawlaha qaranka loogu ilman yahay waxaan aaminsanahay in guul la gaari karo waatu hadraawi lahaa galaduba waxay saaran tahay wax isu geygeyn aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu